أنا ما تقلبي يعني كلها الله يا وحندي شيء يا حكومة مركز الأنسحية تضرب بلادكم يضع هالبل يبرجته يا وحال وشري ودك دبدي سلوشري أول يريد دولتان وإن لمعارضه وإن لجوه ريماده وإن موش لا كانوا وحقيقة وين ما بقى لما الدولة دي ما نشقينين ولي وحي كجرتها وحبرش كجرتها مركي وحلقوها كان معارض نمو دينا حد way socotaa iyadoo indha lahayn dhagan lahayn oo dhaqan hore u jiray waxa hadda arkaysaan 4 sano ka hor way jirtay dawladan ka horeysay markii la doortay iyadoo 6 bilood jirta yaa layla soo hadlay aniga oo la yiri waa la mucaaradaya dawladaas ee ka soo qaybgal oo xaqiiqo waxay ni sheegayeen oo waxaan ku yiri dawladan 6 bilood jirtay maxay ay sameeyso lagu mucaaradaya dadka hawshan hadda ku jira qaarkood markaasna waa ku jireen xaqiiqada ay sheegayaan waxaan kula taliyay oo ilaahay hortiisa waxaan ku iri waqti la siiyo dawladdu waa urdun hadda la doorto sanada siiya waqtiga markuu soo dhow yahay qofkii damac ku jira hal sano markay dhiman tahay qorta wax alla wixii ka halaabay waa bin aadane intaas keena oo umada u sheega inaad idinku wax ka fiican qabanaysaan laakiin lugaha iyo tafaha ayaan la qaban dawladda haddana tiiba socota tafihi baa la rabaa in la qabto oo 10 sano ka hor wixii bilowday hadda ay socdaan oo dib loogu noqdo waxyaabaha keenay in dawladda iyo shacabka la kala fogeeyo waxaan yiri been fakatay run ma gaarto markii propaganda iyo been iyo wax aan jirin lagu celiyo shacabkii rajadooda hoos yaa loo dhigaya wala qalbi jabnaa sharciga ee shacabkii ilaa been iyo propaganda iyo waxaan jirin yaa loo sheegay iyo waxaan xaqiiqo ahayn taasa waxay keentay shacabkii iyo dawladdii in la kala fogeeyo taasa waxa keentay shacabkii in dawladoodii ay kalsooni siin waayaan oo iyadoo dawladdii lagu dhagan yahay 4 sano ee ku dhameystay waqtigeedii iyadoo waxba qaban oo lagu dhagan yahay oo isdifaacaysa waxaan idin sheegayaa xaaladda dagaalan ku jirno naga bixin mayso waxa loo baahan yahay hal cadow yaan leenahay halkaas cadow aan leenahay waa qolooyinka nabadiidka oo shabaabka ah oo maalin walba shacabkeena xasuuqaya oo aanan cid u naxaynin oo caruurteena leenaya oo aan kala jeclayn qofka inuu dawlad u shaqeeyo inuu shacab aan kala jeclayn cadawgeena rasmiga ah oo loo baahan yahay in loo midoobo waa kaas weeye markaan ka adkaano aan soo noqon annaga dhexdeena propagandada beenta ah oo la leeyahay halkaas qaraxa ku jira propagandada beenta oo ciidamadii qalabka siday oo hadda u dhimanaya oo dhufayska ku jira oo duruufta adag haysato oo kaneecada cunaysa yaa shaki la gelinaya iyadoo la isticmaalayo wax laga soo gudbay oo dalkan ku dumay oo qabyaalad ah ma ogolaanayno annaga waxa ogolaan mayno dalkan dib buu soo maray dibkii uu soo maray 27 sano waa aragtan meeshan taaganahay waxaan taaganahay in dalkeenni uu ka liito wadamada Afrika oo dhan uu ka liito annagoo la og yahay inaan nahay dad wanaagsan oo wax walba isaga mid ka ah annagoo la og yahay dad active inaan nahay oo maskax badan annagoo aysan nagu yareen aqoon iyo khibrad saasay tahay dad yar oo danleey ah yaa ummadda ku dhex jirta oo shaki iyo qabiil iska dhex gelinaysa ummadda Soomaaliyeed way ka kortay hawshaas